بسم الله الرحمن الرحيم وزيرada dawladda federaalka xildhibaanada soo dhawaada Puntland gaar ahaan Garowe waxaan idinka mahad celinaynaa gargaarka agabka aad noo keenteen ee gurmad dhibaatadii ka dhacday gobolka Karkaar degmada Qardho waad mahadsantihiin gabi ahaan madaxweynaha ra'iisul wasaaraha ra'iisul baarlamaanka wasiirada xildhibaanada waan idinka maleynaynay agabkaad noo keenteen waan idinka gudoonnay waana ballan inuu Qardho gaaro oo idin raaco safarkiinaan insha Allah biidnillaahi kariim sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam maanta oo ay taariikhdu tahay 1 bishii shanaad 2020 waxaan joognaa magaalada Garowe annagoo wafti ballaaran ah ayaa waxaan ka soo baxnay caasimadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaan nimi caasimadda maamul goboleedka Puntland waftigana wuxuu ka goobanaa xildhibaano dawladda federaalka Soomaaliya iyo wasiiro xildhibaanadaas oo xildhibaanada deegaan doorashadooda tahay Puntland waxaan Puntland u nimi waa wada ogtihiin habeenadii la soo dhaafay waxaa ka dhacay fatahaado aad iyo aad u ballaaran magaalada Qardho gurmadkii aan ka soo shaqeynaan ugu gurmanayna walaalaheena reer Qardhood ayaan maanta bartan nimi anigoo ku hadlaya magaca xukuumadda iyo wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka waxaan maanta bartan keennay 3 diyaaradood oo isugu jira agab loogu talagalay dadkii ka barakacay guryahooda agabkaas oo ka kooban bacahan roobka laga galo teendooyin iyo maacuun qadiifado agabkaas oo aad iyo aad u anfici doona dadkii ka barakacay guryihii ay deganaayeen waxaa horay ay dawladdu u bixisay gargaar isaguna ahaa lacag $1 milyan maantana 3 diyaaradood bay soo dirtay waxaan mar labaad iyo mar saddexaad aad iyo aad uga xunnahay dhibkii soo gaadhay reer Qardhood waan garab taagannahay waan la qaybsanaynaa waxaa kala rabay inaan ku daro isla maanta magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaa ka baxay 3 diyaaradood 2 diyaaradood u baxay dhinaca iyo Baardheere oo fatahaaduhu dhinacaana ay ka dhaceen waxaan bartan baaq uga dirayaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay iga dhageysanayaan maadaama lagu jiro waqtiyadii roobabka waxaan leeyahay meel kasta oo biyo mareen ah iyo meel kasta oo ay fatahaad ka dhici karto inay ka fogaadaan shacabku aad iyo aad u mahadsantihiin saad u jeedaan waxaan nahay wafti isugu jira wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dawladda federaalka deegaan ahaanna ka soo jeeda halkan waxaan u nimi inaan soo booqanno oo tagno khasaarihii ka dhacay degmada Qardho waan dadka walaalaheena dhibaatada halka ka dhacday la soo qaybsanno xaaladda soo qiimeeyno aan soo wareysano dadka deegaanka iyo madaxda dawladda Puntland soona qiimeyn ballaaran ku soo sameeyno khasaaro intuu leeyahay dabadna aan kula noqono madaxdii dawladda federaalka aan ka tirsanayn guud ahaan safarkayga intaas ku saabsan yahay saad u jeedaan waxaan isugu jirnaa wasiiro iyo xildhibaano waxaan anagoo og culayska jira oo coronavirus iyo dhibaatooyin kale waddanka jira guud ahaan haddana waa ka joogi kar weyne inaan nimaanno oo soo booqanno deegaankii dadkeena soo aragno xaaladdana soo qiimayno marka intaas safarkaygu yahay saad aragtaan waxaan wadnay diyaarad buuxda oo runtii macaawino iyo alaab loogu talagalay dadka ku barakacay dhibaatadii daadka diyaaradda kalena waxaa saaran qalab iyo alaab kale oo iyadana saas oo kale ugu talagalay deegaanka marka insha Allah waxaan rabnaa waxaan wax yar weeye